وعشر كيني تطبع الله وينوسو تشيدين دونو الشيخ عبد القادر خير علمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. maanta waxaynu xalaqadan kaga hadli doonaa waxyaabaha caqiidada ama iimaanka buriya. waxaynu ognahay dhammaan inay weysadu jabto haddii ay kula kulmaan waxyaabo ka mid ah kuwa weysada jabiya. sidoo kale waxaynu ognahay inay salaadu jabto adigoo salaadii ku jira haddii ay kula kulmaan waxyaabo ka mid ah kuwa salaada jabiya. soonkii xajkiina waa sidoo kale. dadka badankoodu qof walba uu yaqaan wixii weysada jabiya, waxa salaada jabiya, waxa soonta ka jabinaya, balse waxaad moodaa dad badan inay ka qarsoon yihiin wixii jabinayay iimaankoodii ay alla rumaysnaayeen ama diintoodii islaamka waxyaabo ay kaga baxayaanba aan ogeyn. sidaas darteed maanta waxaynu casharkan ku sharxi doonaa waxyaabaha buriya caqiidada ama rumaynta uu qof rumaysan yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala. balse intaynaan kuwaa u gelin, waxaynu rabnaa in aynu sharaxno rumaynta uu ilaahay qofka bani aadamkaa rumeeyo qiimahay leedahay. dhammaan wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa nicmooyin ku manaystay oo dhan midka ugu qiimaha badan, ugu qaalisan, ugu ajarka weyn, ilaahayna ugu jecel yahay waxa weeye towxiidka, rumaynta uu addoonku rumeeyo ilaahay abuuray subxaanahu wa tacaala. sidaas darteed waxa weeye fadli badan baa ku jira, waana shayga keliya ee qof bani aadama naarta ka nabadgeliya. isla markaana waa shayga keliya ee towxiidku ama rumaynta uu qofku ilaahay rumaysan yahay waa shayga keliya ee muftaaxa u ah jannada aynu raadsanayno. rasuulkeennii sala allahu calayhi wasalam oo inoo sharxaya inuu towxiidku yahay waxa naarta ka nabadgeliya qof bani aadama midka ugu muhiimsan, wuxuu yihi calayhi الsalaatu wassalaam: maa min cabdin yashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh ilaa xaramahu allahu cala annaar. ma jiro addoon qiraya inaan ilaahay mooye ilaah kala jirin, rasuulkiisuna uu yahay addoon iyo rasuul uu u soo diray dadkiisa, oo aan naarta ilaahay ka xarimin markuu labadaa qiro, shahaadada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada cabduhu warasuuluh, oo aanu ilaahay naarta ka nabadgelinini ma jiro buu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. sidoo kale wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay in shayga ugu muhiimsan ee jannadan lagu galo inuu yahay towxiidka laftiisa. sida ku soo aroortay asaxiixayni wuxuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam kamaa ruwiya can abaa dari alghafaariyi radia allahu canhu waardah: maa min cabdin qaala laa ilaaha ila allah huma maata calaa dalik ila adkhalahu allahu aljanna. ma jiro addoon yidhi laa ilaaha ila allah oo isagoo haysta laa ilaaha ila allah ku dhintay sidaa oo aan jannada gelinayn. abaa dar alghafaariyi wuxuu yidhi, waxaan idhi yaa rasuula allah, wain zanaa wasaraq, rasuulkii allow xataa hadduu zinaysto qofkii laa ilaaha ila allah yidhaah oo uu xado miyuu jannada gelaya? wuxuu rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ugu jawaabay: wain zanaa wasaraq, haddii uu xataa zinaysto oo uu xado wuu gelayaa jannada. 3 jeer baan abaadar ku celiyey buu yihi arrintaa, 3diiba sidaasuu iigu jawaabay. marafraadkiina wuxuu ku daray buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam:
ragima anfa abaa darin sanka u daloola abaa hurayra abaa dar hadduu sidaa yidhaahdo inuu jannada galo waa sandulle macnihii ayuu yidhi nebigu calayhi asalaatu wassalaam. haddaba haddii ay towxiidka ama qiritaanka ilaahay la qiriyaa hadduu qiimaha leeyahay oo jannadaa lagu gelayo naarta lagaga nabadgelayo addoon kasta waxaa la gudboon inuu ilaashado caqiidadaas ama rumayntaa uu ilaahay rumeeyey oo ka ilaashado wixii jebinaya, ka ilaashado wixii nuqsaan u keenaya, ka ilaashado wixii xadaya ee ka xadaya qofka towxiidkiisii laa ilaaha ila allah u yidhi. ma jiro run ahaantii khasaare qof bani aadam la kulma oo ka xun towxiidkiisii uu jannada ku geli lahaa naartana kaga nabadgeli lahaa oo ka jabay oo isagoon ogeyn oo soomaya oo salaadaya oo maxay ahayd xaj tegaya ama zaka bixinaya aanu ogeyn in aanu shahaadaba haysanin, inay shahaadadii sidii weysada uga burtay ama ay uga jabtay. waa wax ayaan daran weeye, ilaahay haynaga ilaaliye subxaanahu wa tacaala. sidaas darteed waxa ku waajib ah qof kasta in uu ogaado waxyaabaha buriya towxiidka, waxyaabaha jabiya iimaankii uu qofku ilaahay subxaanahu wa tacaala aaminay wixii jabinaya waa inuu maxay ahayd qof waliba ogaado. waana maxay ahayd arrin fardul cayn ah weeye, waa arrin fardul cayn ku ah qof kasta. waxyaabaha caqiidada buriya way badan yihiin, balse 3 baynu ku soo koobaynaa xalaqadan darteed. waxa weeye kow, buriye qowli ah, qowl uu qofku ku dhawaaqay, dhawaaq uu sameeyey ama hadal uu ku hadlay oo caqiidadiisii ka buriyey. towxiidka ama islaamka waxa lagu soo galaa waxa weeye laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah, laa ilaaha ila allah. hadal ama qowl kulliddi ah laa ilaaha ila allah qofkii yidhaahda diintiisii way buraysaa, caqiidadiisii ama iimaankiisina wuu buraya. ka labaad waxa weeye buriye camal ah, qof falay camal kulliddi ah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah, qofkaasna waxa weeye camalkaas wuxuu ka burinayaa towxiidkiisii, iimaankiisii iyo islaamkiisiiba. ka saddexaadna waxa weeye buriye caqiidi ah, wax uu qofka bani aadamkii rumaystay ama uu aaminsan yahay caqiidi ahaan oo liddi ku ah laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah. marka 3daa maanta waxaynu ka hadlaynaa buriyaha caqiidiga ah oo ah midka ay culimmadu yidhaahdeen waxa weeye ashirk alictiqaadiy. waa shirk caqiidi ah, shirk ictiqaadi ah weeye midka ugu horeeyaynu maanta ka hadlaynaa. shirkiga ictiqaadiga ah ama shirkiga caqiidiga ah waa mid wuxuu ka mid yahay kuwa uu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala dembi kasta oo kale ilaahay waa laga yaabaa inuu dhaafo, balse shirkigaas maalan shirka ictiqaadiga ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ma dhaafo oo shirkul akbar buu ka mid yahay. waxaa la yidhi ina allaha laa yakfiru an yushraka bih wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. aayaddaasuu ilaahay inoogu sheegay in uu dembi kasta oo kale laga yaabo inuu ilaahay dhaafo, balse shirkigaas akbarka ah, shirkiga weyn ee uu ka mid yahay shirkiga ictiqaadiga ah ee aynu sharxi doono, waxa weeye haddii uu qofku ku dhinto ilaahay kama dhaafayo walciyaadu billah. waxaa ka mid ah shirkiga ictiqaadiga ah in uu qof rumaysto in cid aan ilaahay ahayn ay kownkan ku tasarufto. waynu ognahay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, diinteenna islaamku waxayna baraysa inuu ilaahay yahay kii abuuray wax walba, kii iska leh wax walba, kii dabbara, kii maamula,
kii siduu rabo ugu taliyo wax kasta oo jira adduunkan samooyinka iyo dhulka intaba sidaas darteed qofkii rumaysta in cid aan alle ahayni ay ku tasarrufto adduunkan ama tasarrufka ay ilaahay la wadaagto wuxuu noqonayaa qof iimaankiisii ka buray oo diintii islaamka ka baxay hadduu sidaa ku dhintana qof naar gelaya weeye waxaa ka mid ah maalan waa qof baa odhan kara oo waayo gaaladii cahdigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam mushrikiintii asnaamta caabudaysay oo iyaga oo sanam caabud ah haddana waxay rumaysnaayeen siduu ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka inoogu sheegay in ilaahay uu yahay ka keliya ku tasarrifo adduunkan balse maanta waxaa jira dad muslim sheegta oo aaminsan in awliyo waxay ku sheegaan ama shiicada oo imaamiyadooda 12 ama 8 ama wax ka yar ah aaminsan inay yihiin kuwa ku tasarrufa adduunkan aynu ku noolahay samooyinka iyo dhulkiisaba kuwa la wadaaga ilaahay tasarrufkiisa kownkan maxay ahayd aynu ku uumannahay tacaala allahu culuwan kabiira marka way jiraan qof baa odhan kara xaggay joogaan balse way jiraan maanta dad rumaysan dad ay awliyo ku sheegaan oo ay leeyihiin maamulka adduunkan ama kownkan ayay la wadaagaan ilaahay subxaanahu wa tacaala midka labaad wuxuu yahay buriya caqiidada اعتقادك إن وقفك اعتقاده أمر رميسته إن أن عد أن الله أهيني أي أكتهي وحي غيبك أي نجا قرصون أما ينجا مقن ونين أجنه الحمد لله رب العالمين ضد مسلمين ينونه إن أن إلهي موي عد غيبك أوجن شري أوجن إن إلهي موي عد غيبك أوجي إناني شرين وي الله إلهي سبحانه وتعالى قرآن كإنه بشيء وحولي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سيدوك لوحو قال ليلي وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو يا آيضا بدن أوكله وحو إلهي نوغو الشيء إن أن الله لو حكو من غيب وحا كسوغن سموينك يدلك عد أوغ أو آن إلهي هين إناني جرين الله لو حا سموينك يدلك كسوغن اي غيب ان ان الهي مويه عد كلو اوغي اني جيرين ولا ملك مغرب ولا نبي مرسل هذا ملك الهي كدو وجبريل يمي اسرافيل يمي ميكائيل يوحي لمد ولا نبي مرسل اما النبي لا سو ديري هذا عد اوغي اناني جيرين وان الهي هين سبحانه وتعالى sidoo kale wuxuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay isaga oo inooga digaya arintaas in dadka qaar intay u tagaan sixiroole faaliye iyo wax la mid ah ay weydiistaan wax ii sheeg maxaa igu soo socda dumarkii iyo raggii oo qaar u tagayaan maxay ahayd oo ka wareysanaya xaaskoodii waxay ku sugan yihiin alxamdulillah maanta way nagu yartahay badbarigii hore dad badan baa jiray oo u taga kuhanada faalalowga iyo sixiroolaha oo mustaqbalkooda iyo waxay ku sugan yihiin iyo waxa ku soo socda ka wareysan jiray nabigeena calayhi afdalus salaatu wassalaam isagoo irinta ay nooga digaya wuxuu yiri calayhi salaatu wassalaam man ataa kaahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alayhi wasallam qofkii u taga dadkaa sheegta inay og yihiin qaybka ee ka mid yihiin sixiroolaha iyo faalalowga wixii ay u sheegaan rumaysta buu yiri nabigu calayhi afdalus salaatu wassalaam waa qof ka gaaloobay diintii ilaahay ku soo dejiyay nabi muhammad sallallahu alayhi wasallam waxaynu hore u soo sheegnay in ay muhiim tahay
fardulcaynna ay tahay macnihii qof walba ay farad ku tahay inuu ogaado wixii caqiidadiisa ama diintiisa ama iimaankiisa burinaya taasoo ah mid ka muhiimsan xataa barashada waxa weysada jabiya waxa salaada jabiya waxa soonka jabiya waxa ka muhiimsan barashada uu qofku barto wixii iimaankiisa burinaya wixii iimaankiisa nuqsaan u keenaya ama hoos u dhigaya iyo wixii ka xadaya bayna hore u nidhi dad baa odhan kara maxaa sidee looga xadayaa qofka iimaankiisa waa laga xadi karaa sida xabad daymana qofkii haysta looga xadli karo ama lacag badan ayaa looga xadi karaa maanta qofkii haddii uu ilaahay rumaysan yahay oo tawxiidkiisu khaalis yahay oo uu qof soomaya oo salaadaya yahay waxa ka xadi kara qof muslin sheeganaya oo aaminsan sidaynu sheegnay in cid aana ilaahay ahayni ay wax la wadaagto ama tasarufka kownkan ay la wadaagto ilaahay cid aan ilaahay ahayni qof aaminsan cid aan ilaahay ahayni inay qaybka og tahay qofkii sidaa rumaysan ee dabeetana ilmo yar ku barbaariya waxaanu shiicada maalan sidaa rumaysan waxaynu ognahay inay halkeennan waddankeennan ka furteen mararka qaarkood madrasooyin ay ciyaalka ugu dhigayaan qur-aanka ay dhigayaan waxa ku laran in ay imaamka 12kooda imaam maalan inay qaybka og yihiin in ay qof mudarro u keeni karaan inay qof mudarro ka hor joogsan karaan in ay qof maxay ahayd inay og yihiin qaybka inay maxay ahayd tasarufka adduunkan ama kownkan inay qayb ka leeyihiin ilaahay u gaarka ah subxaanahu wa tacaala kuwaas oo dhammina waa shirk qaawan shirk akbar oo milada lagaga baxo weeye sidaas darteed waxaynu leenahay qofkii xabad dheemana haysta haddii aanu ilaashanin xabaddaa dheemana waxaa lagaga bedelan karaa quraarad dheemantaa u eg tawxiidkii ay qaaliga ahaynu sheegnay jannada lagu gelayay naarta lagaga badbaadayay qof haysta caqiido faasid ah haddii uu wax u dhigo ama barbaariyo caqiidada faasidka ah buu raacayaa ilaahay haynaga sabato saaro ilaahay subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo kuwii caqiidadooda ilaashada kuwii ka ilaashada wixii ka xadaya wixii ka burinaya iyo wixii nuqsaan u keenaya intaba والله أعلم والسلام عليكم